ايوه رساتي سمونك سنيد Cabdisalaan hereri baa la yiraahdaa ninkan waxa la yiraahdaa Ibrahim Baafo waxaan wariyaal ka yimi Ingiriiska magaca Soomaaliya la ii sheegay inaad leedahay magaca Soomaaliga maxaa la yiraahdaa Umar Warsame maxaad koo baxday Umar Warsame markii hore waan Kenya tagay magacaas waa la ii siiyay korantii Umar markaas kadib hotel Soomaali iska lahaa ayaan ku joogi jiray Mombasa oo Warsame baa lagu daray Af-Soomaaliga barashadiisu qofka aan u dhalanin sidaadoo kale miyay adag tahay mise waa iska fudud yahay waa adag tahay way maxaa kugu waxay Soomaali cadaan badan way kari waayeen inay Af-Soomaali ku bartaan waatay adiga maxaa kugu sahlay markaa ma baran wax yar aan qalo aad baa Soomaaliga ugu fiicay maxaa laakiin markaad baranaysay shaaban la abid jiray makhaayadaan ku tagi jiray oo shaqaysan jiray marna hooga afka sidoo ku bartay haaye Stephen de kugu yaram Umar horta waraysigan waxaad ka warantaa Soomaalida waxa lagu tilmaamaa dad xidhxidhan oo aan la dhaxgali kareynin oo ay adag tahay in la dhaxgalo qiyaasta sax ma tahay صح ما dadka way soo dhaweeyaan waa dad furfuran baad leedahay adaad afkooda yara bartid way ku soo dhaweeyaan si fiican bay ku soo dhaweeyaan laakiin marka aad afkooda aqoon ka waran waa yara adag tahay dhaqanka iyo afka yara bartay ayaa ku fududanaya xusuusta ugu wanaagsan haddii lagu yidhaa tilmaan ee aad kala timi dhulka Soomaalida Afrikada bari ama Ethiopia ama Kenya maxaad ku tilmaami lahayd Umarow waan jeclahay yani anta Soomaali ana cuna oo dadka soo dhawayn jiray cuntada Soomaalida maxaad ugu jeceshay bariis iyo pasta iyo hilib geel waan jiray hilib geelna cuni jirtay iyo caano waan dhami jiray Umarow marka sanadahan dambe Soomaalida tilmaanta laga bixinayo la yiraahdo waa dad rabshad badan dagaal badan wadankoodii burburiyay sidaadoo kale dadka ajnabiga uma yaqaanaan ma u sheegtaa ma ku tiraahdaa war dadkan ma aha dad sida lagu sheegayaa Soomaalida waa dad aqli badan leh haday fursad helaan ma heersaari bay gaarayaan sama hadii tacliim la siiyo oo access fiican ay helaan وهذا مسكح في عن برلين سمالده لكن عمرو ساد أكتهي إن ودك عن نيوزيلند Soomaali way yimaadaan dhowr sanadood bay joogaan sharciga qaataan Australia wada tagaan marba New Zealand sometimes way digtahay shaqo ila hala meeshan qas ahaan qof aan farsamo yaqaan ama wax bartay inay halkan shaqo ku helay way yar adag tahay marka sidaan maqlay Australia way ka furudahay Stephen Umar aad iyo aad baad mahadsantahay way nabadgeliye wahagaagintaasna waxa ku dhan barnaamijkan oo idinka imanayay magaalada Auckland oo magaalada ugu weyn ee wadanka New Zealand inta barnaamijkan oo kala aynu dib ugu kulmayno waa aniga Cabdisalaan hereri iyo Ibrahim Umar Baafo oo idinku dhaafay intaas iyo nabadgeliyo